ka heli doonaan taasi oo aan caadi ahayn sidoo kalena u wanaagsaneen Turkiga maadaama labadaasi dhinacba ay tartan adag ee kula jiraan taariikh ahaan Turkiga marka la eego waa Qubrusta Greek oo maamulo iyo dawladii Greekaba inkastoo marka midowga Yurub ay mashruucan ay ku dareen kuwa ugu muhiimsan ee mustaqbalka laga hirgelin doono qaaradda Yurub qarash badanna lagu bixin doono kadibna uu ka soo xaroon doono dhaqaale badan laakiin dhanka kale marka la eego warqad Mareykanka uu u diray wadanka Greega bishii February ee sanadkan wuxuu ugu sheegay in aysan marnaba juhdi badan aysan gelin mashruucaas sababtu maxay tahay sababtu waxa la yiri waxa la saaray caqabado aad u tiro badan oo laga gudbaa in ay adag tahay ama waqti badan ay qaadan doonto waa Greega halkaasina Turkiga wuxuu ka arkay fursad oo ugu yaraan uu ku jabin karayo hawshii hore uu u bilaabay waana midda keenta marka in ay hadda ay ballanqaad ama martiqaad u fidiyo madaxweynaha Israa'iil iyadoo ay doonayaan in mashruucaasi laga leexiyo wadanka Greega oo halkii markii horeba Greega uu ka mari lahaa la marsiyo Turkiga iyadoo oo meeshaasi faa'iido badan ay Turkiga u yaraan ay ka soo gali doonto sidoo kalena ay cadaadis siyaasadeed ay ku saartay Greega kadibna ay ka dhigan karto halkaasi mustaqbalka kaarka ay ku ciyaari lahayd siyaasad ahaan sababtoo ah halkaas hadii dhuuma ay marayaan oo ay adag tahay dhuumahaasi dawladaha ay faa'iidaha ay ugu jiraan ama faa'iidooyinka ka helaya inay carqalad ay ku sameeyaan sidaas ay tahay marka Mareykanka oo mashruucaasi ka dayriyay wuxuu ahaa dhiirigelintii ugu weyneed ee ay Turkiga ay halkaasi ay ka heleen wadanka Turkiga marka iyo guud ahaan bariga dhexe marka la eego hadda waxa ka jira xaalad hubanti la'aan taasi waxay keentay marka in wax walba ay fadhiid ay noqdaan tusaale ahaan tani markii ururka cadaaladda ee wadanka Turkiga uu qabsaday waxa bilowday hoos u dhac dhaqaale waxa sidoo kale lagdan adag oo ku jira sida la sheegay liirada dalka Turkiga oo soo gaartay meeshii ugu hooseysay iyada oo sicir bararka wadanka Turkigana uu gaaray 54% waxaan intaas u sii dheeraad marka in wadanka